wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Maxamed Xuseen oo maalmahan safar shaqo ugu maqnaa caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo. Wasiirka ayaa intii uu ku sugnaa caasimadda Addis Ababa waxa uu kulamo la qaatay hay'adaha deeq bixiyaasha ee daneeya arrimaha Soomaaliya isagoona kala hadlay suurtagalnimada sidii xirfadaha shaqaalaha wasaaradda kor loogu qaadi lahaa. dadkiin maalmahan waxaan ku maqnayn dalka dibadiisa waxaan joognay magaalada Addis Ababa oo aan kulamo kula yeelanay maxaa la deeq bixiyaasha sida midowga Yurub iyo DFID iyo Adam Smith oo aan ka wada hadalnay sidii ay noogu taageeri lahaayeen maamulka iyo hanaanka maareynta maamulka maaliyadda oo horeen ay noogu saacidi jireen haddana ay loo ballan qaadeen inay sii wadayaan nagala shaqeeyaan Koonfur Galbeed inay gaarto isku filnaansho dhanka dhinaca dakhliga iyo maamulka iyo maaliyadda run ahaantii hay'adda Adam Smith oo aad nooga caawisa dhanka tababarada shaqaalaha iyo maxaa la dhanka waxyaabaha aan soo iibsano oo ama haddii aan leeyahay waxyaabo qaar aan dhisayno aad aan isku soo fahamnay waxaan soo wada saxiixanay qorshe howleed oo sanadka soo socda iyo sidoo kale waxaan isku fahamnay mashruucooda oo ku eg in sanadkan 2020 haduu ilaahay yiraahdo oo ku eg sidii ay u balaarin lahaayeen oo maxaa la ay nolol sii shaqeyn lahaayeen maadaama maamul cusub aan nahay weli maamulka isku filnaansho ma gaarin waxaan rabnaa in dadka oo partnerska ama saaxiibada Soomaaliya sida hay'adaha deeq bixiyaasha inay weli ay nala shaqeeyaan garabkoodana waa u baahannahay anagana insha Allah shaqo culus wadnaayo waxaan rabnaa marka taageeradooda iyo farsamadooda iyo khibradooda u baahanna inay nagala shaqeeyaan. sidoo kale wasiirka maaliyadda ayaa ka hadlay miisaaniyadda sanadan 2019 ee Koonfur Galbeed oo maanta ay ansixiyeen golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. maanta markaan soo laabtay waxaan kaloo maanta shalay darad la horgeeyay miisaaniyadda golaha wasiirada oo sanadkan 2019 oo miisaaniyaddaas oo runtii golaha wasiirada ay soo akhristeen maantana maxaa la dood badan laga sameeyay discussions laga sameeyay alxamdulillah markii dambena way ansixiyeen golaha wasiirada way ansixiyeen insha Allah mar dhow waxaan u gudbinaynaa sidoo kale baarlamaanka oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya si ayagana maxaa la ansixiyaan runtii sanadka oo maxaa la bish April la sii maraa in miisaaniyadda aan ansixiyay waa dareemi kartiin waxa waaye maamul sida lagu jiray transition badan aan soo maray alxamdulillah ilaahay hadda noo waafajiyay inaan horgeeyno golahii wasiirada markaas kadibna aan u gudbino insha Allah si isbuuc soo socda baan u finalize gareeno aan u dhameeyno insha Allah runtii miisaaniyadda laba qayb ay ka kooban tahay inta badan waxa waaye qayb oo dakhli anaga aan sameeyno oo Koonfur Galbeed ka soo xaroodo waaye inta kale waxa waaye waa mashaariic iyo kab oo dhinaca kale ka yimaado waaye waa sida ay sheegeen dawladda Koonfur Galbeed waa dawlad yar oo weli cusub waaye marka mar walba miisaaniyadda dawladda ka waaweynaa la kaba ayadana sidoo kale meena waxa waaye kab kama maaranto marka miisaaniyaddu waa qaabkaas ay ka kooban tahay waa wax oo meena sida ogtiinba qiyaas waaye marka qorshe waxa waaye dhaqaalo waaye waxaan rajaynaynaa in insha Allah miisaaniyaddeena hadda miisaaniyad aad u yar waaye sanadka soo socda inay ka badato insha Allah oo meel fiican aan gaarsiino inta ugu badanna waxaan rajaynaynaa inay wadanka gudihiisa deegaanada Koonfur Galbeed ka soo xarootaan rajaynaynaa insha Allah. Cabdullaahi Nuur Aadan, SAB TV, Baydhabo.